السلام عليكم أصحابتك وحيران channel كيغا دكتور سجيا soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay channel kayga subscribe inoo saar haddii aad ka mid tahayna asxaabta hore noola joogtayna muuqaalka inoo la garay waad ku mahadsan tahay muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dumarka iyo ragga farqi noocee ah ayaa u dhaxeeya dhibaatada caafimaad ee laga dhaxlo siigada haddaba haddii aan sii guda galo muuqaalkeena maanta waxaan ognahay siigada in ay ragga dhib ay u keento dhibkaas oo la sheegay in uu geedka ka jilco ama ribax degdeg ah ee ka dhaxlaan dabardari eena ka imaado marka waxaan rabaa in aan ogaado haweenka biyaha shahwada iska keena in ay la kulmaan dhibaatada ragga oo kale ama in ay ka duwan yihiin haddaba waxaa kaga bogan kartaan maqaalkani fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar haddii aad tahayna asxaabta hore inoola joogtayna muuqaalka inoo la garay gambaleelkana sii furo si aad ula socoto macluumaad caafimaad oo ku xiiso geliya sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin kale ay keeni karaan siigada oo aan ahayn dhibaato la xiriirta xubnaha taranka marka hore waxaan ka hadlayaa siigada dhibka ay u keento dumarka dhinaca xubnaha taranka runtii naagta siigeysata hadday tahay gabar bikra ah waxay dhaawac u geysan kartaa fikradeeda siiba marka ay wax isgeliso ama ay sameyso waxyaabo markaasi la falgalaya duleelkaasi taasina waxay si toos ah waxyeelo ugu geysan kartaa xuubka fikrada gabdhaha ha ahaato fircooni ama suno ama gabar aan la gudin si kastaba ha ahaatee xubinta taranka dhib ayay u geysan kartaa waxyaabaha ay isticmaalayaan waqtigan xaadirkaasi teeda kale gabdhaha ku siigeysta daliiga furuuriyaha xubinta taranka iyagoo dhib ayay kala kulmaan gacanta ayayna u bartaan marka la guursado raaxo kama helayso galmada dabiiciga ah ilaan waxay u baratay gacan in ay ku sameyso raaxada iskana keento biyaha haddaba dumarka qaarkooda oo soo bartay gacanta kama helaan raaxada xubinta ninka ilaan gacanta iyo geedka ninka way kala duwan yihiin waxaa kaloo jira dhinaca nafsiga dumarka siigada bartay sida ragga oo kale waxay dareemaan dembi iyo murugo samayska maskaxda hablaha iyo ragga way ka siman yihiin ninka biyaha gacanta iskaga keena dhibka iyo fikir xumida uu kala kulmo wuxuu la mid yahay midka ay haweeneydu kala kulanto marka ay ku dhaqaaqdo falkan siigada ah marka siigada ragga iyo dumarka uma fiicna dhibka ay u keentana farqi weyn uma dhaxeeyo raaxada laga helo siigada la mid maaha midka laga helo galmada xalaasha ah qofka siigada u bartay waxaa laga rabaa in uu joojiyo si uu noloshiisa u ilaaliyo xaaskiisana u qanciyo sidoo kale dumarka bartay siigada waxaa laga rabaa in ay ka dheeraadaan la wadaag asxaabtaada si ay iskaga ilaaliyaan dhibaatooyinka ay leedahay siigada fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar channelka haddii aad tahayna asxaabta hore noola joogtayna waxaan ku leenahay welcome inoo la garay muuqaalka waad ku mahadsantihiin sida wacan aad inoo socotaan